waxaan ahay nin lagu magacaabo Maxamed Abuukar Nuur waxaan la dhashay marxuumka dhintay oo ahaa walaalkay igu qaaliya waxaana dilay gacanka gardaran oo dawladda sheeganayso oo ilaa maantaba ay daba ordayaan dad dawladda ka mid ah shalaytana aanan la duugin aanan meel nala tagin aanan la hadlin intii maxaa la dhahay aan wada joognay oo anaga eheladii adaan ahaynay aan duugahayna aan noo imaanin waxaan rabaa cadaalad inaan aragno waxaan rabnaa maxkamadda iyo dadka wax xukumo inay xukun fiican oo sharciya oo diiniya ay wax noogu xukumaan haddii ay midaas dhacdo waa mid ilaahay baneeyey oo wada toosana haddii ay dhici weydo waa mid noogula qaldan yahay haddaba aan u jeedno musuq maasuq iyo in la hooseeyo oo qofka hadduu yahay taliya hadduu taliya yahay wuxuu dilay sargaala oo dilay asaguna waa sargaal nin shaqo qabahayo dilay asigana nin shaqo qabahayo ahay okay hadduu shaqo qabahay ninka uu dilay nin shaqo qabahayo ahay waa isku mid waxaa la rabaa in qofkii qof dilo si cadaalad loo dilo taas may dhicin waxaan u aragnaa dhibaato waxaan u aragnaa haddana qoyska heer Abuukar in arintaas madaxayna ka weynaatay ilaa maanta ilaa shalay waqtigii la dilay ilaa iyo hadda cid guriyana ka seexatay malahan soo jeed baan naabin oo soo jeednaa maalin oo soo jeednaa intaasna waxaa dhibaato nagu wiilka nagala dilay haddana si cadaalad aan wax u arkin ilaa iyo hadda wax badan ay kala duwan yihiin markii oo meedka ahay ninkaas oo la dilay waxaana la tusay in bistoolad maxaa la dhahay saas loo hayo lagu dilay waliba labada gacan lagu haysto bistoolada nin taliya ah oo ciidanka u taliyay meesha joogo ciidanka booliska waliba la yiraahdo Tarumatariya aniga magacaada siraysa saasaan u jeclahay inay aheeday booliskaas ayaa u taliyay ninka ma joogo dekada agteeda dekaday bay aad meesha muuqaalkana la tusay wuxuu ahaa muuqaal baabuurka istaagsan lala murmay oo lala hadlay dabadeedna hadalkii oo socdo xabad labada gacan nin ku haysto oo la hortago dhash ku siiyay miyaaradda wixii dilka ay waa arki maysid bistoolad la haysta ma arkaysid qof soo ordayso qoray inuu ka katib amal u eg iyo waxyaabo isku qalqaloocana arkay aanan fahmi karin tii hore iyo midaan ismaba lahaba marka waxaan rabnaa cadaalad inay soo baxdo cadaalad rasmi ah la helo niman socda jiro ordaayo oo maxaa la dhahay meelaha galgalaayo galgal wuxuu ka dambeeyaa galgal wuxuu ahaa lahay shalay haddii waxna la qabto oo nala duugo oo waxaan rabnaa nolol suubiyo oo nala yiraaho cunugaas ana ka dilnay waana duugayna waana isaaga imaahayna saasa wax lagu dhaqi jiray intaba ma arkin asaga wuxuu shaqay jiray Umar Maxamuud Umar Finish oo gudoomiyaha gobolka ah waliba security oo chief security qaaska u ahay waxaanan maqli jirnay oo macnaha ku ogeynay inuu ninka si fiican ay isugu fiicnaayeen Xuseena oo na jeclayba waqtigaas laakiin maanta jaceelkii inay anaga qalbigeena la eedeen u aragnaaba Umar Finish si fiican uu ugu dheersan yahay waxaan rabaa Umar Finishow haddii wiilka la dilay wiilkaadi ahay adigana aadan imaanin xatee aanan ka arag wax hadala oo ah wiilkii hadii la dilay wixii dilana waa dabagaleena sabar iimaan ala naga sii horta kaama arag taasna waxay nagu noqotay dhibaato madaxda madaxtaay waxa waay dadkeedu madax kama ah waa in hoos tagtay ay madax u weynay jirtay waxaan ka codsanaynaa inuu waxna la qabto ilaa iyo heer maxkamadeed oo wax walba nala tago